sababta loo xiray ayaa ahayd inuu sitay fanaanku laba baasaboor oo kala ah baasaboorka Itoobiya iyo baasaboorka Soomaaliya labada baasaboor ugood ayaa lagu xiray. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Isku soo noqonaysa waa mar kale video cusub. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. maanta waxaan ka hadli doonaa xadhigii loo geystay fanaankii Khadar Keyo. Wada ogeydeenba waxaa wadanka Itoobiya lagu xiray fanaankii Khadar Keyo. Fanaanku wuxuu joogay wadanka Somaliland gaar ahaan caasimadiisa Hargeysa iyo magaalada Boorame. Waxa uu safar u aaday wadanka Itoobiya, safarkaas oo ah safarkii lagu xiray. Waxa uu ka soo degay garoonka Addis Ababa, halkaas oo lagu xiray aan ilaa weli la ogeyn meel lagu xiray iyo xabsiga uu ku xiran yahay. balse sababta loo xiray ayaa ahayd inuu sitay fanaanku laba baasaboor oo kala ah baasaboorka Itoobiya iyo baasaboorka Soomaaliya labada baasaboor ugood ayaa lagu xiray saylaanka meel uu ku xiran yahay iyo meel uu ku jiro lama oga. insha Allah xoriyadiisa waa la soo celin doonaa waana la soo deyn doonaa. intaan kaga teganaa muuqaalkan haddii aad muuqaalku cusub tahay ama YouTube channelku cusub tahay waxaan ka codsanayaa subscribe saarto, like na saarto. aad iyo aad ugu maasto waxaad inaystayo amaan Allah. Hold me close till I get up.